أنت سيدا نقنش تكسيلا لها ومقالة كحماشة اسك قرابتها الحمد لله. وإبراهيم علي الراجي oo kamid ah dadka aanu lixaadkooda dhameystirneen ee ku nool magaalada Muqdisho. Ibrahim ka hor inta uusan naafoobin waxa uu kamid ahaa darawlada gaadiidka Muqdisho oo waxa nolosha qoyskiisa uu ka dabari jiray gaari taxi ah oo uu lahaa. hase yeeshee isagoo ku howlan la tacaalida nolosha laba reer oo uu leeyahay ayaa waxa saameeyay rasaasi bareer ah ay ula bartilmaameedsadeen kooxaha ka horjeeda dawladda Soomaaliya. xilliga wixii ka dambeeyay waxa uu waayay Ibrahim dareenka qaarka dambe ee jirkiisa oo waxa uu ku aruuray sariir waxa adkaatay nolosha qoyskiisa sababtoo ah isaga ayay Allah ka sugo ku tiirsanayeen waxaan ku booqday hoygiisa oo ku yaala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir intaan sida noqonash taksilan lahaa oo magaalada ka xamaasho iska qaraabtaa alxamdulillah meeqsan koreed macna adiga 2004 bishii 22 kii amraysa ka dhaxabada igu dhaceen idiga intii labada naas ka hoosan bareel iska noqday alxamdulillah ka bacdi waa saan iska noqday ilaahay nimcadiis anoo iska guri jooga alxamdulillah ilaahay nimcadiis wiilal oo saaxiibana ay soo gurmadeen oo mootadan iibiyeen alxamdulillah idina ay ku nastay alxamdulillah meeqab sana amal haysta mootada bil amal intaas haysta wata kor ma jirta waxyaaba magaalada ku aadi kar jirto ma jirin wax aan magaalo ku aadi karaayo waa ilaa qof oo laba garab iyo madax oo kaliya inta kale oo moort wata qoys ayaad leedahay sida aan arkayo bal ka waran halkee tasiilaadka nolosha qoyskaas wallahi qof hadda goona ugu tiirsana ma jirto dad muslimiin oo qaar isnaqaan iyo qaar maqal iga yaqaaniin iyo qaaran is xuquuna xataa laakiin ilaahay wuxuu soo dhiibaa aan quudsho laba xasan leh halba ka badanyihiin laba reeran leh alxamdulillah waana dhaqan ilaahay wax managa halayna alxamdulillah inta aan la joogay Ibrahim waxa iiga muuqanaysay kalsooni badan oo waxa uu aaminsanaa in qof Allah ku xiran culays kasta oo nolosha ku soo wajaha aanay jirin dhibaato oo la kulmayo wallahi qofka duu ilaahay ku qanacsan marnaba dhib ma aragiyo sidaan aaminsanaan wax miiga haleysno marka halna waan faraxsanahay haddana waa faraxsanahay alxamdulillah koos nolosha ilaaha kifaalo qaado waana qanacsanahay wax managa haleysno diin waa iska badan yahay laakiin ma la soo koobi karay Ibrahim Ali Raagi oo hadda xaaladiisu ay adag tahay waxa uu si naxariis leh uga codsanayaa cid waliba oo awooda in kaalin ay ka qaadato baxnaaninta xaaladiisa caafimaad iyo nolosha qoyskiisa inay kaalmeeyaan wallahi alxamdulillah kulli qofka dareen la dareemi kariya inta naftiisa u baahantaan u baahanay waa alxamdulillah qofkii damiir bilaadanimo iyo wadaninimo ku jirtay walaaltinimo iyo islaamnimo way dareemi karaa qof saas nolosheedu tahay dantaas xaasil ku xiriiran inta qof dan leedana dan le waa dareemi karaa baahidan waa dareemi kartaa in waa kaasaad ilaahay khayr haysi inta muslimo igri gartay inta igri gartay khayr la siiyo inta hadda ka bacdi aragtay igri gartay insha Allah ilaahay khayr haysi lana insha Allah dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool Muqdisho ayaa markay arkeen xaaladda Ibrahim waxa ay u istaageen in door ay ka qaataan xaaladda muwaadinkaasi Soomaaliyeed ee u baahan gargaarka waxaana ay u suuro galiyeen dhalinyaradaasi inay u iibiyaan mooto uu ku socdaalo mootadan dhalinyarada markii ay ku gadeen ka waran maxay ku saamaxday oo aad ka faa'iiday wallahi wax badan ay ku saamaxay islaan ka soo wili aan ku bixino maalinta ugu horeyso tijaabada ka qaadi maayay lug iga gubtay marka ilaa maalinta lugtaas aan la jiifo wili ma aan ku bixin laakiin isla hadda ku baxdo wax badan ka saaid doonta saasan aaminsan insha Allah qaabkee lugta ugu gubatay wax yar noo shar lugta ma qaybtan waxa ku jira motorka lugta ogaal ma lahan motorka kulan lugta iska saartay adiga muddo nus saac malan ku socday waa ku soo laabtay xaafadan ku mid markay lugta liga ma intaas ma dareemin markii xaafada la keenay la dijaa ka bacda arkaba lugtiyo oo gubatay oo baqbaqday oo ida dhandhacaan ka socda la arkay alxamdulillah waa iska fiican tahay idoo ay fiican rabto insha Allah marka laga tago in Ibrahim uu naafa ka yahay qaarka dambe ee jirkiisa waxa iiga muuqanayay dhaawac ka soo gaaray mootada ay u iibiyeen dhalinyarada taas oo ka dhalatay markii uu lugta saartay qayb ka mid ah mootada oo dab uu ka kacayay laakiin nasiib darro uusan ogaan maadaama lugtiisa aanay dareen lahayn